gudoomiyaha barakacayaasha xaafada fadhi ee magaalada Burco ayaa ka warbixiyay xaaladda barakacayaasha sida uu warkaasi noogu soo diray wariyaheena Maxamed Axmed Damaashaad oo nooga soo warama magaalada Burco. xaafada barakacayaasha fadhi oo 8 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ah xaafad ay ku noolyihiin danyar ah isla markaasina tiradooda lagu qiyaasay 2100 qoys kuwaas oo ah dadkii abaarihii baahsanaa ee wadanka soo maray ay ka mid yahaabiyeen xoolahoodii. xaafadan ayaa ah mid ka dayacan marka loo eego dhammaan baahiyaadka asaasiga sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha, korontada iyo gaadiidka. haddaba gudoomiyaha xaafada fadhi Maxamed Nuux Yuusuf ayaa ka warramay xaaladda guud ee xaafadani waxaana qadheer u diray maamulka heer gobol mid degmo iyo cid kasta oo ay khusayso arintani. joogaa gurigii ay ka dhacday roobabkii daay masiibada ay ku dhacday reerkii masaakiinta ay cayroobay halka yeelay inanta danku kaga dhacay. marka hore baahi baa taala fara badan oo Soomaaliland ay ka warhayso cidii mas'uulaha ee wax garadahay danaynaysa gaar ahaan reerka wax ku dhacday masiibo inanta matadaan gaashaan qaado reerka mafciisi marka uu dhamiyay halka ku dhimatay. geerida waa loo diyaaro waa xaq cid walba way dhimanaysaa laakiin geeri argagax baa ku dhacday danabkii roobabkii daayay baa ku dhacay. aad bay caawimo ugu baahan yihiin iyo waxtar mid hooy iyo mid manfac iyo mid adduun mid walba way u baahan yihiin. iyaga iyo dadka kale yaalaaba 3 sanadood baa dadkaas halka yeelay hooy ma laha, waxbarasho ma laha, iskuul ma laha, xanaano ma laha. magaalada waanu ka fognahay ilaa 8 kiiloomitir baan magaalada u jiraa. qofka dumar ee foolata tig baa lagu qaadaa Burco lagu geeyaa inta badan silc bay ku dhalaan dad hanti haysto oo isbixinayo oo dhakhtar isku bixinayo maaha meesha la geeyaa lacag bay ka doonaysaa ama bareefada noqoto ama dhakhtar noqoto marka dadka baahiyaadkiisu ilaahay un baa dabool kale way badan yihiin. waxaanu ka codsanaynaa dawladda Soomaaliland ee uu madaxweynaha u yahay Muuse Biixi Cabdi inay ummadda hoos u eegaan oo daneeyaan hay'adaha maxalliga iyo dawladaha islaamka cid walba inay danayso oo wax u qabato meelay degto iyo waxay ku noolaato iyo manfac iyo hooy iyo waxbarasho iyo cusbitaal iyo xanaano mid walba way u baahan yihiin. biyaha booyad baa noo timaada dawladda hoose ay noo soo dirto 2100 qoysna way taalaa ma kafayso ay wax ka feynaya ma waxa aad u kala fog weeye. marka cid kasta oo ummadda Soomaaliland ee baahidu ay keentay meesha danaynaysa waxaanu ka codsanaynaa tijaarta Soomaaliland madaxda Soomaaliland dawladaha islaamka meel kasta ay joogaanba hay'adaha maxalliga kuwa dawliga iyo kuwa maxalliga waxaanu ka codsanaynaa dadka inay u soo kaalmeeyaan wixii ay tari karaan. waxqabad buu baahan yahay baahi fara badan baa taala meesha ay ku nool yihiin saxaafada naga duubay oo aragtaan. geesta kale waxaanu halkaasi kula kulanay Siciid Salebaan Ibrahim oo ah aabaha qoys oo dhawaan halkaasi danab kaga dhacay kaas ay ku dhimatay gabadh 15 sano jir ah waxaanu dadyoga islaamka ka codsaday in la soo caawiyo. waxay wax tareeday ay na tari karayaan in la soo tago dawlad iyo qalbo waxay wax tari karayaan iyo hay'adaha waxay tari karayaan la soo taro. hooy ma hayno dadka arkaysa inuu ku jira inta malin meesha aan deganay malin marka dhammaan way maatay waxay ilaahay yaaga isaas maray waxay deegan soo caawiyaa waxaan tarnoo keena isaaskooda mariyo. Maxamed Axmed Aadan Maxamed Damaashaad wararka Royal TV magaalada Burco.